Gudaha dukaan weyn oo lagu iibinayo alaabaha elektaroonigga iyo moobilada waxaa taagneyd haweeney wadatay 2 carruur ah. Waxa ay carruurteeda u iibinaysay alaabada qaar. Waxaa soo galay wiil iyo gabar dhalinyaro ah kuwaas oo ku jira da'da 20meeyaha. Wiilka dhalinyarada ahaa ayaa ka dalbaday ninkii iibinayay dukaanka in uu siiyo jawaalkii ugu dambeeyay ama moobilada casriga ah. Ninkii dukaanka iibinayay waxa uu u sheegay lacag badan. Wiilkii dhalinyarada ahaa waxa uu u sheegay in uu ogol yahay lacagtaasi. Kadib waxa uu ka codsaday in telka uu baraweysto, sidaas darteedna uu gashto simikaar uu asaga wato, si bal uu u eego in codka uu shaqeynayo in kale. Ninkii dukaanka iibinayayna waa uu u geliyay simikaarka. Ninkii dhalinyarada ahaa ayaa ku dhahay ninkii iibinayay taleefanada, meeshan ma lahan anteena fiican, sidaas darteed dibadda ayaa la istaagayaa moobilka. Ninkii dukaanka iibinayayna ma uusan diidin, maxaa yeelay gabadhii asaga la socotay ayaaba u fadhisay dukaanka oo u jeedaa. Daqiiqado yar kadib, ninkii dukaanka lahaa ayaa u diray mid ka mid ah shaqaalihiisa si uu u soo eego ninkii taleefoonka qaatay. Ninkii shaqaalaha ahaa ee loo diray si uu u soo eego ninkii dhalinyarada ahaa ee moobilka la baxay ayaa soo galay asaga oo ordaya. Waxauna u sheegay in ninkii taleefoonka bannaanka kula hadlayay uusan lahayn wax raad ah, ama in uusan joogin agagaarka dukaanka oo dhan. Dadkii meesha taagnaa oo dhan waa ay yaabeen, indhaha ayayna wada taageen. Haweeneydii u imaatay in ilmaheeda ay wax u iibsatay, dhammaan alaabadeeda waa ay iibsatay, waxayna isku diyaarinaysay si ay uga baxdo dukaanka. Laakiin waxa ay xiiseynaysay in ay aragto waxa u dambeeya gabadha la socotay wiilkii dhalinyarada ahaa ee xaday taleefoonka. Marka ay si fiican u eegtay qaabka iyo wejiga gabadha, waxay ogaatay in gabadha asal ahaan ay ka soo jeedo qoys wanaagsan oo aan raad ku lahayn musuqmaasuq iyo xatooyo. Waxa ayna ogaatay in aysan wax lug ah ku lahayn ama aysan la ogeyn wiilkii xaday moobilka. Ninkii dukaanka lahaa iyo dadkii taagnaa dukaanka oo dhan waxa ay ku qaylinayeen gabadha oo ay u sheegayeen in wiilka ay isla ogaayeen xatooyadan, ayna doonaysay in ay ku shaqaysato tuugnimada, loona wici doono askarta si loo xiro. Waxaa soo dhex gashay haweeneydii wadatay carruurta, waxayna u sheegtay in gabadhan ay tahay gabar madax looga jiro ama mid aan waxba ka ogeyn dembigan dhacay, iyadana in ay tahay hooyo fahmi karta waxa ay carruurta dareemayaan. Gabadhii dhalinyarada ahayd waxa ay ku dhaaratay in aysan weligeed wiilkan arkin ilaa maanta maahee. Ninkii iska lahaa dukaanka iyo dhalinyartii la shaqaynaysay waxay isku dayeen inay gacan u qaadaan gabadha, laakiin haweeneydii ayaa dhahday, aniga waxaan la ahay dukaankiina deris, waxaana idiin ahay kastamar joogto ah, sidaa darteed gabadhan waxba uma geysan kartaan. Waxaa idii furan keliya inaad wacdaan booliska oo aad u sheegtaan. Ninkii dukaanka lahaa waxa uu qaatay hadalka haweeneyda. Gabadhii ayuuna si deggan u weydiiyey, yaa waayo wiilkan dhalinyarada ah, maxaase idinka dhexeeyo labadiina? Gabadhii ayaa ku jawaabtay, waxaan isnaqaanaa muddo 2 bilood ah, waxaana iska barannay xagga Facebookga. Mar walbana waxa uu igu qasbi jiray inaan mar uun is aragno. Anigana waxaan dhihi jiray haddii aad rabto aragtideeda imow gurigeena oo aan ku wada sheekaysanno reerkayga dhexdiisa. Shalayna waxa uu igu qanciyay inaan maanta is aragno si aan ugu heshiino waxyaabaha qaar, kadibna si wadajir aan ugu tagno ehelkayga oo uu isoo doonto. Si uu igu caddeeyo run ahaanshiyaha hadalkiisana, waxa uu ii sheegay in uu igeynayo dukaan oo uu ii soo iibin doono mid ka mid ah taleefanada dunida ugu casrisan. Kadib waxa uu i keenay halkan, waxa uuna sameeyay wixii aad aragteen. Ninkii meesha iska lahaana waxa uu ka codsaday gabadha in ay furto barta uu ku leeyahay Facebookga. Markii ay isku daydo in ay furto profile-kiisa iyada oo ilinta ay ka daadanayso, waxa ay aragtay wax ay aad ula yaabtay. Markii ay weysay bartii uu ku lahaa Facebookga, maxaa yeelay mar hore ayuuba xiray bartii uu ku lahaa Facebookga. Ninkii meesha iska lahaa waxa uu isku dayay gabadha in uu ka qaado lambarka waalidkeeda si uu ula xiriiro, laakiin gabadhii way ilmeysay
waa ayna ka biyo diiday, iyada oo ka cabsanaysa in ay garaacaan waalidkeeda. Balse markii dambe waxay u sheegtay in ay wici karto abtigeeda. Sidii ay sheegtayna waxa ay wacday abtigeed. Waxa uuna imaaday rubuc saac kadib. Waxa uuna ku imaaday gaariga ugu casrisan uguna qaalisan gawaarida. Abtigiina dukaanka waxa uu ku soo galay si degan, qurux badan, ixtiraamna leh, si uu u caddeeyo in gabadha uu abtiga u yahay ama ay dhashay walaashiisa ay ka dhalatay qoys taajiriin ah. Asaga oo aan loo sheegin waxa meesha ka dhacay, waxa uu laabta geliyay gabadhii uu abtiga u ahaa. Ilinta ayuuna ka tirtiray. Waxa uuna weydiiyey in qof ka mid ah dadka meesha joogo wax dhib ah uu u geystay iyada. Waxayna u sheegtay in haweeneydan wanaagsan ay ka celisay. Abtigiina aad ayuu ugu mahadceliyey haweeneydii. Kadib waxa uu weydiiyey ninkii dukaanka joogay telefoonka qiimihiisa. Waa uuna dhiibay lacagtii oo dhan. Gabadha uu abtiga u yahayna waa uu kaxaystay, iyada oo dukaanka dadka jooga dhan ay la yaaban yihiin waxa dhacay. Haweeney dhalinyaro ah oo da'deedu ay ahayd 30 sano waxaa lagu soo furay dhaqan xumada iyo dhibka ay ku hayso ninkeeda. Maalin maalmaha ka mid ah, iyada oo wadata gaarigeeda quruxda badan ayaa waxa ay soo agtaagtay haweeney iibinaysa ukun. Waxa ayna weydiisay inta ay gadayso ukunta. Haweeneydii iibinaysa ukunta ayaa waxa ay ugu jawaabtay 1 gini ayaa gadaa halkii ukun. Iyada oo si kibir leh u hadlaysa ayaa waxa ay dhahday 10 ukun ayaan waxaan ku qaadanayaa 8 gini ama waan iskaga tegayaa. Haweeneydii ukunta iibinaysay ayaa ugu jawaabtay, qaado wixii aad jeceshahay, waxaa laga yaabaa Alle inuuna siiyo wax ka wanaagsan. Waxay soo qaadatay ukuntii iyadoo u malaysa in ay wax dhacday. Waxayna kortay gaarigeeda. Waxaana la socotay saaxiibteeda qaaliga ah. Waxayna isku raaceen mid ka mid ah maqaayadaha. Markii ay imaadeen maqaayadda, iyada iyo saaxiibadeed waxa ay dalbadeen wixii ay u baahnaayeen. Wax yar ayay ka cuneen cuntadii, intii kalena waa ay ka tageen. Markii uu u imaaday ninkii u keenay cuntadii ay cuneen, waxaana loo sheegay in 230 gini ay cuneen. Waxa ay bixisay 250 gini, iyadoo maqaayadda ku dhahday, inta soo hartay idinka ayaa iska leh. Waxa ayna raacday gaarigeeda. Si kadis ah waxa ugu halaabay gaariga. Way istaagtay. Waxa ayna gacmaha u taagtay gawaari badan oo meesha maraysa. Laakiin qofna uma istaagin. Cabbaar markii ay ka soo wareegatay ayaa waxa uu istaagay mid ka mid ah gawaarida qaraabka ah ee ka soo haray gawaaridii hore. Waxaana waday wiil dhalinyaro oo iska daciif ah. Waxay cabbaar ka fikirtay in gaarigan ay raaci karto iyo in kale. Waxa ayna ka cabsanaysay in qof walba oo arka uu fahmo lacagta ay leedahay, kadibna uu damco ama dhibaato uu gaarsiiyo. Laakiin waa ay iska raacday markii ay ka maqashay quraan gaarigii uu waday wiilkii dhalinyarada ahaa. Intii ay jidka ku sii jireen, waxa ay weydiisay wiilkii magaciisa iyo waxa uu ka shaqeeyo. Waa uuna u sheegay. Waxayna ogaatay in uu yahay wiil hadda ka soo baxay jaamacad oo hadda ku shaqeysta kaxeynta takaasida. Xoogaa yarna niyadda ayaa u qabowday. Markii ay aragtay in wiilka dhalinyarada ah uu yahay mid edeb leh oo aan hal mar gadaal soo eegaynin, ayay niyadda waxay iska dhahday, waad qaldaneed, maadaama ninkan dhalinyarada ah aad wax xun ka malaysatay. Waxa ayna go'aansatay in markii uu geeyo meesha ay rabto, ay siin doonto lacag intii uu ka dalbado. Intii ay waddada sii socdeen, wiilkii dhalinyarada ah ayaa ka codsaday haweeneyda in wax yar ay u dulqaadato si uu wax u iibsado. Waxa uu arkay nin iibinaya sabuul. Waa uu ka qaatay. Waxa uuna siiyey lacag ka badan intii uu iibinayay sabuulka. Haweeneydii ayaa arkaysay. Waxayna dhahday, waxaad dhiibtay lacag badan, inta aad soo qaadatay ayaana yar. Maxay tahay sababta? Waxa uu dhahay, aabbahay ayaan ka bartay dhaqankan. Mar walba uu wax gadanayana waxa uu ka gadan jiray dadka masaakiinta ah. Waxa uuna siin jiray in ka badan lacagta ay ka rabaan. Mar walba oo aan dhahana aabba maxaad sidaas u samaynaysaa, waxa uu idhihi jiray, wiilkaygiyow, qof walba oo miskiin ah waa la siiyaa sadaqada. Sadaqadana waxay kuu soo laabanaysaa mar kale.
wax yar oo aan anaga wax naga dhibaynin waxa ay farxad gelinaysaa qof sabool ah oo aan wax haysanin. Haweeneydii aad ayay uga xumaatay wixii ay ku soo samaysay haweeneydii kale ee iibinaysay ukunta. Markii gurigeedii la soo gaaray oo ay rabtay in ay degto, ninkii dhalinyarada ahaa ayaa waxay weydiisay waa imise lacagta, waxauna ugu jawaabay waxba lagama rabo. Ijaarkayga ama lacagta aad isii lahayd waxa weeyaan in qof walba aad aragto aad wanaag ula dhaqanto. Gurigeeda ayay soo gashay iyadoo aad u yaaban. Lacag badan ayayna qaaday waxayna aaday haweeneydii miskiinta ahayd ee ukunta gadaysay, waxayna rajaynaysay inay ku arki doonto isla meeshii ay ku aragtay. Waa ayna ku aragtay kadib waxa ay siisay lacagtii ay haysay oo idil. Haweeneydii iibinaysay ukunta ma aysan rumaysanin wixii ay aragtay. Iyada oo ilmeynaysa ayay waxay dhahday, Alle ayaa mahad iska leh, hadda ayaan aadi karaa gurigayga. Waxay kaloo dhahday, hadda waxaan awoodaa inaan dawo u soo iibiyo gabadheedii yar ee xanuunsan. Haweeneydiina waa ay farxday farxad aysan weligeed farxin. Subaxii ku xigtay maalintaasi waxay aragtay ninkii ay kala tageen oo u keenay wiilkii ay dhashay oo u diiday in ay aragto sanado badan, iyadoo awal uu uga watay dhaqan xumadeeda. Ninkeedii hore waxa uu dhahay, dibadda ayaan u socdaa, wiilkaagana waan kaaga tagayaa. Hayso, waxaan kuu soo noqon doonaa aniga oo lacag leh, sidaada oo kale, si mar dambe aadan inoo liidin aniga iyo wiilkayga. Laakiin xaaskiisa hore uma aysan ogolaanin in uu safro. Waxayna ka codsatay in uu ku soo laabto gurigiisa iyo xaaskiisa, ayna cunugooda wada korsadaan si wadajir ah. Waa uuna ka yeelay. Laga bilaabo maalintaasi waxay noqdeen caa'ilo ama qoys faraxsan. Xaaskiina ma aysan noqonin mid mar dambe ku tumata damiirka iyo sharafka ninkeeda.